Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan dalka Hungary. Dalka Jamhuuriyadda Hungary waxay ku taalaa bariga qaaradda Yurub. Wadamada xuduudda la wadaaga ee jaarka yihiin waxaa ka mid ah dalka Serbiya, Romania, Slovakia, Ukraine, Austria iyo Croatia. Caasimada dalka Jamhuuriyadda Hungary waa Budapest. Budapest waxay ku taalaa bartamaha Jamhuuriyadda Hungary. Dadka caasimadda ku dhaqan waxay gaaraan 1,600,000 oo ruux. Dadka jamhuuriyadda waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 9 milyan kiiloomitir square. Qiyaas ahaan baaxadda dalka Hungary waxa ay ku dhowdahay dadka uu ku fadhiyo gobolka Indiana ee dalka Mareykanka. Dadka ku dhaqan dalkan waxay kor u dhaafeen 9,900,000 oo ruux. Dalka Hungary wuxuu ka mid yahay wadamada Yurub ee ku jira xaaladda hoos u dhaca kororka, waxaana la saadaaliyey in dadka reer Hungary ee sanadka 2050 ay hoos ugu dhici doonaan ilaa 7,800,000 oo ruux, taas oo ka dhigan in la weyn doono 2 milyan oo ka mid ah dadkaasi. Luuqadda lagaga hadlo waddankaasi waxaa ugu horreysa luuqadda maxalliga ee Hungarian-ka, taas oo ay ku hadlaan dad gaaraya 98.2%. Wadarta luuqadaha kale ee lagaga hadla waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa 1.8%. Dadka aqoonta leh ee u dhashay waddankaasi waxay gaaraan 99.0%, taas oo muujinaysa heerka dalka uu ka gaaray aqoonta iyo sida uu ula dagaalamay jahliga. Ragga ku dhaqan dalka Hungary celceliska cimrigoodu wuxuu gaaraa 67 sano, halka dumarka uu gaaro 76 sano. Qaabka uu u shaqeeyo dowladda dalka Hungary waa nidaam baarlamaani ah. Madaxweynaha dalka Hungary waa János Áder. Lacagta waddankan laga isticmaalo waa Hungarian forint. Dalka Hungary wuxuu caan ku yahay warshadaha. Warshadaha dalka Hungary waxaa lagu farsameeyaa qalabka dhismaha, dunta, kiimikooyinka iyo baabuurta. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka.